aniga maamulka kastamka waxaan cadeynayaa xafiiskii kastamka oo ay ciidanku maalinta dhaweyd naga kaxeeyeen isagoo sidiisa u xiran oo aan wax taab ah filkiisii laabkiisa mid la taaban dokumentigiisa noogu leeyahay ayaan maanta kala wareegay maxaabiistii kastankii siduu inoo sheegay maamulaha kastanka waa alaabtii oo dhan waa noo dhamaystiray maxaabiistii noo anigoo afliya ciidan kumaandoosta waxaan caddaynayaa in meeshan gudood ka dhacay godkaasina uu sameeyeen ciidanka kumaandoosta koox ka mid uma dhammayn siyaasadina kama damayn waxay ahayd tabashadina waa la xaliyey dowladda iyo odayaasha isimada iyo annaga ciidanka kumaandoosta dhexdeeda kulli waa ka qayb qaadanay arrintaas si wanaagsan bayna noogu dhammaatay tashiirkuna wuxuu yiri siyaasad baa ka dambeysay reer baa qabsay ma ahayn reerna ma qabsan siyaasadna kama damayn mucaaradna ma qabsan ciidamadu waa sameeyaan gudood ciidan waliba aan saraakiil wadan oo ahaa oo dhalinyaro oo koox yar oo ciidan ka mid ah ciidankuna waa ka xumaa arrintaas isbana raacsanay anaa caddaynaya taliyaha kumaandooska hawshaasina waa dhammaatay mar dambana dib damba ma dhici doonto ciidanka kumaandooska waxay diyaar u yihiin inay maslaxadda ummadooda iyo dalkooda dadkooda ka shaqeeyaan difaacaan cadowgooda amniga gudahana ka shaqeeyaan dadka facebookyada wax ku qoraya iyo idaacadaha ka hadlaya sumcadda ciidanka kumaandooska qoloteen waa dhaaftay aad bay u sarraysaa shacabkooda laguma diri karo dowladooda laguma diri karo laguma horkeeni karo biniaadankuna waxa weeye carab iyo ilkaha isugu dhowaa isqomaan waxba dadku isu gegeystaan cabasho waa imaan ka dhaca cabasho wax dhaafsan ciidan iyo dowladdiisa cabasho wax dhaafsan ma jira ciidanku dowladda waa taageersan yahay si cad baan uga shaqaynaynaa si cad baan dalkayga ugu difaacaynaa si cad baan waxa weeye amniga gudaha uga shaqaynaynaa argagixisadaanu wadanaynaa waxa weeye shaqadeedii sidii baan wadanaynaa wax ka jiraan ma jiraan war xumo lagu waaweeye waa gudood dhalinyaro oo aan ku saabsanayn saraakiil xataa hal sarkaal lama socon waa koox yar oo ciidan ka mid ah waa mahadsantihiin saxaafaddana waa u mahad celinayaa odayaasha iyo isimada iyo maamulka gobolka iyo degmada kulli waa u mahad celinayaa taliyaha qaybta iyo saraakiisha booliiska kulli dhammaan booliiskana waa wada shaqaynaa amnigaan ka wada shaqaynaa gacan baan ku siinaa wixii ku adkaada haddana diyaar waa taliyaha qaybtana waa u mahad celinayaa taliyaha qaybta waxaan leeyahay taliya laba taliyo gobolka nugaal maadaama aan nahay oo xoogaa ciidanka ka tirsan raalli ahow waana wixii qaladka ka dhacay meeshana waxa weeye dadweynaha puntland iyo dowladdaba waa ka raaligelinaynaa mar dambana ma dhacayso waxaan halkaan ka sheegayaa laba kelmadood labadaa kelmadood oo ah horta qalad ma dhicin lama odhan karo qalad waa dhacay laakiin qalad ka dhacay wuxuu ahaa in xadaysan waxaan ka markhaanti ahay oo mara ka kacaya anoo ah taliyaha qaybta nimankaasu kontaroolka iyo intii ay fadhiyeen wax ka baxsan oo magaaladaas oo ay dhibaato u geysteen iyo hal hab oo dhacday iyo nabadgelyo xumo iyo khashashaad magaalada lagu sameeyey ama foodo iyo nabadgelyo xumo ay sameeyeen inayan jirin waxaan leenahay marka wixii dhacay waxay u taal waa wax dhacay weeye dowladda iyo ummadda iyo dadweynaha iyo waxgaradka waxa la isla wada ogaa weeye nimankaasu waa ay gadoodeen waxayna sheeganayeen wax ka maqan xuquuq inay ka maqan tahay iyo inay ka maqnaan allah aclam wa rasuula ma sheegi karno laakiin waxaan marag ka ahay inayan nabadgelyo xumo ka baxsan inta ay sheeganayaan ayan u geysan dadka iyo deegaanka iyo magaalada midna intaas baan caddaynaya anigu waana ka baxay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa la gabagabeeyey waana la dhameeyey maanta oo taariikhdu tahay 12kii bishii saddexaad 2017 anigoo ah duqa caasimadda Puntland Garowe waxaan caddeynayaa in meesha aan joognaan ay kastankii tahay ciidamadan xiriyahoodii ay ku noqdeen shaqadiina si caadi ah oo rasmi ah ay u socoto dawlad iyo shacab iyadoo la isku duuban yahay ayaa hawshan lagu guuleystay waana caasimadda Puntland waa nabad horena nabad bay u ahayd haddana waa nabad dadka facebookyada iyo baraha bulshada wax ku qorayana waxaan leenahay waxba kama jiraan wax wanaagsan inaan qodhaan baa idin fiican inta waxan qori lahaydeen
wax qof walbana mas-uul wuxuu ka yahay wixii dadka Soomaaliyeed ay ku horumarayaan inuu qoro ama islaamnimadiisa ama Soomaalinimadiisa sidaas weeye waxa laga rabo ma aha wax dhibaato geysanaya ama war aan jirin inuu abuuro wax ka jira ma jiraan reer nugaaleedna waxa lagu yaqaan inay xaliyaan wax kasta oo soo mara sidaas loogu baxshay magaalada nabadda middan ciidankan ciidan Puntland weeye wax dhiba oo ka dhacay hal qof erix lagu ma oran intii meesha joogeen tabashadiina waa la xaliyay dibna u soo noqonayso aad iyo aad baa mahadsan waxay tiraahdaa wax la qaba xisan mar marka badankiisi waa la waxaa la isku raacay waa sida u jeedeen in kastamkii iyo controlka la wareejiyay wax dhibaato ah aysan ka dhicin meel yar baan ku dardarayaa qalad yar baa dhacay wuxuuna ka dhacay koox ka mid ah ciidanka kumaandooska hawshaasna waa la xaliyey taliya ciidanka kumaandooska oo juhdi badan geliyena wuxuu ballan qaaday inaysan arrintaas mar dambe soo noqonayn waa lagu mahadceliyaa waxaana ka sugaynaa taliya markaas inuu sidaa u sheegtay noqdo ciidanka kumaandooska 7 sano jiraaba umaleeyaa weligiis maanta ka hor kama dhicin waxaan rajaynayaa sidiisa si ka fiican inuu noqon doono waxaan rabaa inaan garo sidii hortiin arkaysay taliyay saldhigga xabsigan waxaa ku xirnaa 87 buus baa ku xirnaa dhammaan xabuustii waa laga wareejiyey oo gacantii dawladda baa lagu soo wareejiyey awalna ciidanka uusan baxayay taasi waxay ku cadaynaysaa inaysan wax system aysan waxba u dhibin oo aysan waxoodu ahayn inay wax burburiyaan ay ku ekayd adeero hadalka ay ku ekayd runtabasho kaliya maamulka kastamku wuxuu furay xafiiskiisii waa yaalaan cashuuraadka buugtii lagu qaadi jiray hortiina wuxuu ka qiray inaan wax dukumiintigiisii la taaban taasuna waxay qiraysaa hadday lacag doonayeen dukumiintiya jabsan lahaayeen waxay ku goosan lahaayeen inaysan sistamka dawliga waxba u dhimayn bay qiraysaa oo ay yihiin wadaniyiin dhammaan agabkii kale oo saldhigyada yaalay waa sidoodii runtii waxa weeye waa wax qaladkii dhacay lagu sixi karo maxaa yeele qofka hadduu intuu wax ka dhacaan wixii meel au ku ekaysiiyo waase intaa dhaafin waa guur weeye waxaana ku tustay haba qaldameena xilkasnimada ay leeyihiin taliyaha qaybtu wuxuu sheegay inaan wax fal amni darra ah aysan magaalada u geysan annaguna waxaan ognahay shacabkii weynihii meeshaa marayay inaysan wax dhibaato u geysan ama waxay ka qaadeen ha noqoto ama wax dhibaato ha noqotee Soomaalidu hadda waxay tiraahdaa adduunka inta ilaahay abuuray carab iyo ilka isku dhowyiin waa isqaniinaan oo ay yarbeehayd xurgufta waa la xaliyay intii marka nabcayd wanaagga intii nabcayd caasimadda horumarkeeda intii nabcayd midnimada Puntland oo Facebook-yada ku qoraysay waa la bilaqaystay waa la qabsaday dhibaato ka taagan waa u jeedaan oo hadda hooshina macallin waxa kama jiraan intii jeclaydna waxaan ugu bogaadinayaa inay waxay wadeen wanaagga ay hore u sii wadaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasiirka caafimaadka labada gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadooda gudoomiyaha degmada agaasimaha guud ee arrimaha gudaha janalada ama janalka muxudiin oo maartay saraakiisha sare oo booliska odayaasha iyo waxgaradka ganacsatada siyaasiyiinta ka soo qayb gashay iyo ciidanka dawladda Puntland oo kala gedisan ama haadan ciidanka kumaandooska meesha tabarkii hore ku gadooday ama haadan ciidanka booliska iyo laamahooda kala gedisan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saxaafadda waa dib baa iyadana ka raacsiinaya aad iyo aad baan waxaan uga mahadcelinayaa cid kastoo arrintan ka soo shaqaysa maantana arrintan waxay ku dhammaatay guul bay ku dhammaatay halkan hadda waxa taagan oo war saxaafadeed dhinacyada ka taagan waa ciidankii booliska iyo ciidankii kumaandooska oo xilka la kala wareegaya iyo mas'uuliyiintii gobolka iyo degmada way wax halka hadda wada fadhiya arrintanna waxay ku dhammaatay sidii
inta samaha jecelayd bay ku dhammaatay inta dhibaatada ka shaqaysa ama dhibaatada buurbuurisana waxaan leenahay war ummadda Soomaaliyeed maanta dhibaato uma baahna waxay u baahan tahay maslaxa in laga shaqeeyo annaguna dadka maslaxada ka shaqeynaya baan markii la soo Puntland arrinteeda laga hadlo Puntland wax waa ka dhacaan laakiin mar walba Puntland arrinteeda waxay ku dhamaataa xal nabadeed bay ku dhamaataa sababtoo ah dad dhaqan iyo sharaf iyo aqoon leh sida dadka kale isu laayaan oo ama ay isugu laayaan kontaroolada ama waarta waxyaalaha yaryar oo minorka ay isugu laayaan Puntland arrintaas kama dhacdo marka waxaan leeyahay inta maaragtay baraha wararka wanaaga ka sheegayso maslaxada lahayd ha laga gaarana waxay u noqonaysaa maaragtay arrin farxad bay u noqonaysaa inta waxa xun sheegaysana waxaan leenahay waxa xun masjid shaqeynaya waxa shaqeynaya wanaaga waxa shaqeynaya maslaxada waxa shaqeynaya midnimada waxa shaqeynaya aragtida suuban oo saliimka waxa shaqeynaysa sababta dadka waxa badan boqolkiiba 95 waa inta maslaxada ka shaqeysa shanta hadheena waa inta argagixisada iyo inta fawdada la shaqeysa marka inta fawdada la shaqeysa waxa ka badan inta maslaxada ka shaqeysa marka waxa weeye aad iyo aad baa waxaan ugu mahadcelinayaa saraakiisha halkan ka dheer soo gashay hadday wax tawdeen waxa la tawdaa waxa la tawdaana Puntland dadka baasiti u leeyahay inay arintooda maslaxa ku xalistaan arinta maslaxa lagu xaliyay wayna dhamaatay dadkuna gacmo u haystaa Puntland waa in cid kasta meel kasta ay joogto waa inay amniga ka shaqeysiyo horumarka Puntland xilli abaaraad baan ku jirnaa umada abaaraha iyo dhibaatada ka jira waa inaynu gacan siino wax kale oo xumaanana inaan ka shaqeyno aad iyo aad baan u mahadsantihiin